maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa gaashaanka ku dhuftay xabad joojin ay ku dhawaaqeen ciidamada isbahaysiga ee Carbeed ee uu garwadeenka ka yahay boqortooyada Sacuudiga ayagoo ku tilmaamay inaan dhab ka ahayn baaqan ay ku dhawaaqeen halka ay ka sii wadaan duqeyntii cirka iyo dhulka ayaga oo waliba weeraro kalena kaga soo qaadaya xuutiyiinta dhowr angal oo kala duwan. xuutiyiinta ayaa sheegay inaanay hirgeli doonin wax xabad joojin la yiraahdo haddii aanay cunaqabataynta laga qaadin ay ka dambeeyaan ciidamada isbahaysigu. afhayeenka rasmiga u ah ee ku hadla afka xuutiyiinta Maxamed Cabdisalaan ayaa sheegay in go'aankan xabad joojintu ay soo jeediyeen ciidamada isbahaysigu ee uu ku tilmaamay dawladaha cadowga noo ah ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay mid ku eeg dowlato siyaasadeed iyo mid warbaahineed loogana jeedo marin habaabin fikirka dhabta ah ee ay qabaan xuutiyiintu isla markaana ay u gudbiyeen jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa.